السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وحالي راه ياسين عبد الله وحان دقناهي مقالة يوتبوري دالك سويدن. maanta waxaan damcay in aan ka hadlo dad fara badan oo dhalinyaro ah oo dhibaato ka haysta arrimaha qaxootiga. marka waxaan damcay maanta in aan in yar oo ku saabsan arrimaha qaxootiga iyo dadka nabadgelyo doonka ah inaan ka hadlo. anigoo oran sharciga wadankana waxba u dhimin isla markaasaytina idin faa'iideynaya ayaa waxaan damcay marka inaan in yar oo kooban oo nuxurka aad kala bixi kartaan. waxa laga yaabaa wax walba inaan sheegin laakiin idinku muhiimadda inaad kala baxtaan haddii Ilaahay idmo. qofku marka uu wadanka yimaado waxa uu dalbadaa nabadgelyo. nabadgelyada markaad dalbanaysid macnaha waxa weeye dhibaata kugu soo dhacday wadankaagii dhibaatadaas darteed ayaad wadankaagii la joogi weyday. sidaas darteed waxaad u baahan tahay in aad wadankan cusub oo adiga aad timid in uu nabadgelyo ku siiyo. hadday noqoto nabadgelyo siyaasadeed iyo hadday noqoto nabadgelyo bini'aadanimo iyo hadday noqoto nabadgelyo qaxooti. haddaan saddexdaas idin kala qaado waxa weeye nabadgelyada siyaasadeed waxaa la siiyaa dadka siyaasiyiinta ah ama dadka journalistaha ah oo iyagu naftooda lagu dabagalayo. kuwa bini'aadanimada waxa weeye dad yani wadankoodu uu dhibaato dagaal iyo waxaas ay ka socoto laakiin isagu aanan يعني dad ay dabagalaya iyo waxaas aysan jirin macna si bini'aadanimo la isugu siiyaa. iyo kuwa qaxootiga ah waxa weeye waa dad la dabagalayo ama ma garanaysaa eheladooda ama waalidiintooda ay siyaasiyiin ahaayeen ama macnaha qolooyin kaleeto oo ka adag ama ka xoog badan ama hub wata ay ceyrsanayaan oo shakhsi ahaan baa loo beegsanayaa qofkaas. marka qofkaasaytana waa gooni. marka saddexdaas nooc bay inta aan hadda xasuusto saddexdaas nooc bay u kala baxaan. wadanka marka aad timaado wadanka marka aad timaado waxaad maraysaa saddex waraysi. saddexda waraysi horta mid kan koowaad waxa waaye waraysi ma aha waa midka ugu horeeya oo fara laga qaadayo magacaaga waxaasaytii meeshaad ka timid iyo waxyaalo lagu weydiina. kulli waa waraysi kooban isaguna ku darayna inuu waraysiyadaas mid kamid ah uu yahay. midka kale waxa weeye waraysi family reerkaaga qoyskaaga dadkii aad ka timid iyo ka soo hayaantay ayaa waxa lagu weydiinayaa macnaha ayaa wadankii ku haray maxaa kugu dhacay xagee ku sugan yihiin macnaha mid saas ah weeye. iyo midka ugu dambeeyo oo midka weyn ah oo waa midka ama sharciga la isku siiyo ama la isku diido laakiin taas macnaheeda ma aha kuwii hore waxaad sheegtay wax ka duwan baad sheegi kartaa. taas ma aha macnaheeda yani wixii waa inay isla socdaan oo ay leeyihiin يعني wax la raaci karo oo is wada leh oo isla socda. ka saddexaad macnaha waxa weeye midka weyn kaas baan geli doona insha Allah xogaan ku dheeraan doona. midkaas weyn waa midka isna sharciga la isku siiyo arrinkaaga oo dhan nasal u ah aas u ah. midkaas marka waxa lagu weydiinayaa aqoonsigaaga. macnaha aqoonsiga marka lagu weydiinayo maxaad yani waxa la rabaa in la ogaado qofka aad tahay. waxa la rabaa macnaha qofka aad tahay marka lagu weydiinayo macnaha ma dhihi kartid Xasan Jaamac Faarax baa la yiraahdaa ama Saciido Cabdulle Macow iyo macnaha ma aha taas waxa laga hadlayo. waxa laga hadlayo waxa weeye magacan adiga aad sheegatay oo aad leedahay Xasan Faarax wax saas ah la yiraahdaa in aad runtii adiga leedahay magacaas oo adiga lagu dhaho iyo inuu yahay magac kale oo meelaha ka soo qaaday oo qof kale uu leeyahay. fahmaysa? marka magacii baa la rabaa horta marka hore in la hubsado inuu adiga yahay iyo taariikhdii dhalashadii iyo waxaas aad sheegatay. da'daada waa muhiim. dhalinyarada kale waxa lagu qabsadaa inta badan da'dooda kuwa da'yarta isku dhiibo kale iyagana lagu qabsadaa. waxaad ku cadeyn kartaa macnaha magacyadaada. dadka Soomaaliyeed waxay yiraahdaan horta ana ku cadeynaya. maxaad ku cadeynaysaa baa la weydiiyaa markaas uu yiraahdo afkaygan ku cadeynaya. marka walaal ama walaashay haddaad maqlayso afka wax lagu cadeeyay ma adduunka ma jiro. waxaas waa waxay iska samaysteen siyaasiyiinta Soomaaliya jooga iyo
qulub taasayta waaye wax la caddayn yani caddayn haddaad maqashido qofku waa inuu la yimaado documenti qoraal ah macnaha inuu la yimaado yani inuu la yimaado xataa filin lagaa duubay markaad dhalanaysay oo filinku laftiisa ay taariikh ku qoran tahay waxaa jira sawiradii waagii hore la qaadi jiray ama kuwa hadda la qaadi karo kaamiradan aan ka duubayo taariikhda aan qaaday waan ku qori karaa haddaan rabo si automatic macnaha markaan duubayo bay ka soo baxaysaaba uma baahni inaan gacantayda ku qoro ma fahmaysa wax qoraal ah oo diyaar ah oo toosan oo isla socdo haddaad keento dee waad caddaysay haddii kaleeto dee afkaad ka sheegtay qofka dee afka waxa doontaad ka sheegi kartaa malaayiin baa hore wax soo sheegtay marka dadkaas wax soo sheegay kama duwanid marka afka waxa aad ka sheegtay macnaha wax lagugu aamini kara maaha ma fahmaysaa so marka qofka aad tahay waa muhiim inaad ku caddaysid warqad ama passport ama taysar munishibio ama warqad dhalashada ama xataa warqad shaqo lagugu siiyay hadda ka hor muxuu ahaa mid bangi aad lacag kala baxday ama bangi kuu furnaa oo magacaagaas aad sheegaysay taariikhdaadaas iyo bangiga magaciisa iyo meesha laga heli kara xataa haddii la rabo in la raad raaco bangigaas laftiisa iyo waxaasayto kaleeto macnaha waa caddayn lahaansho guri xataa haddaad haysato inaad guri hore u lahayd oo kaleeto halkaas magacaaga uu ku qoran yahay taariikhda guriga aad iibsatay iyo lahaanshihiisii goolkaa la wareegtay iyada lafteeda waa documenti nooc ka mid ah caddaynaya qofka aad sheegaysid inuu yahay waxaas ka sii fiican waxaasoo dhan inaad haysato wax sawir ah macnaha sida kaarka taasara munishibiyaan dhahnaa anagu weligan dhihi jirnay macnaha munishibiyada ama degmadu kaarka ay bixiso ma garanaysaa oo ah dee qofka magaciisa ku qoran sawiradiisa ku qoran taariikhduu dhashay iyo guriga uu degan yahay xitaa lambarkiisa marmarka qaarkood ku qoran taas wey so marka taas ba wax ku caddayn kartaa marka afka markaad ka hadlaysid waxba ma aadan caddayn laakiin Soomaali haddaan nahay wax badan baanu dawladdan aanu ka cabanay aanu u sheegnay waxyaalo fara badan bay naga ogolaatay waxyaalo fara badanna way naga diiday so marka waxyaalaha ay naga ogolaatay waxaa ka mid ah maadaama ay diidan yihiin inay ogolaadaan documentiga Soomaaliga macnaha inuu yahay mid saxsan inkastoo dadku inta is badan aanay wadanin inuu sax yahay haddana waxa weeye macnaha inay ogolaadaan in qofku uu afka ka sharaxo oo afka aad ka sheegtid laakiin sheegista afka aad ka sheegaysid yani sheegista afka aad ka sheegaysid baa laba nooc kala ah waad garan kartaa saaxiibadaada marka ay kula joogaan saaxiibka markuu qiso kuu sheego been ah waad garanaysaa korkiisa iyo sida uu hadlayo iyo hadalka inuu gagafayo iyo hadal aanan islahayn iyo muxuu ahaa sheeko gaaban iyo mid muxuu ahaa duuduubka ku qaada iyo waxyaalahaas buu kaaga sheekeynaya ama uu ku leeyahay laakiin qofka markay dhabti wax ku soo dhacdo oo ay wax ku soo dhacdo yani wuxuu sheegayaa sheeko is haysata wuxuu sheegayaa macnaha wixii say u dhaceen sheeko taariikh leh saacad leh marqaati leh dadka taagnaa meesha jawiga sidoo ahaa waxaasoo dhan baa markaa sheegtid yani xataa adoon caddayn keenin baa inta badan ama marmarka qaarkood xitaa lagu aaminayaa maaha inaad ismadloomisid iyo maaha inaad ooysid oo oohin iska keentid iyo oohin la iskuma siiya sharci iska ooyin kartaa haddaad rabtid laakiin waxaa sharciga la isku siiyay waxaa waaye qofkan hortaada fadhiya inuu ku aamino ma fahmaysaa waa qofka yani uu kugu maqan yahay waxay hadalkiibuu qoraya yani marka su-aal lagu weydiiyo su-aasha inaadan ka gabanin marmarka qaarkood ama inta badanba wallaahi qofka marka su-aal la weydiiyo su-aasha la weydiiya ma ahay su-aalo kaleeto oo shaqo ku lahayn buuba ka jawaabaaba tusaalan kuusoo qaadaya macnaha tusaalahan aniga midaan anigu samaystay waa mid dad ay yiraahdeen maaha laakiin waa midaan aniga samaystay oo si aan dee يعني إذن تصو وعي جرا قف وحال ليها مجاعة وحكوف لأنه يرهذا مجاعيجا وحال يرهذا ياسين عبد الله لكن هدي مجاعة مركل اللي يرهذا قفكي ويرهذا فيري أيدي وحير ربتينا إيه بحسه عبد الله ان awoowe waa soo booday wuu diiday wuxuu yiri ma nuur baa loo bixinaya hooyo ayaa digsiga dhulka ku tuurtay waxay tiri nuurna ma jira yaasiin baa loo bixinaya soo magacii hooyo guuleystay
so يعني وقرا كرتا معناها مش كذا وسعته يعني هبل مقع مرك لو يرادو مقعيق هبل بالي يراهدا خلاص هو فلانتا يعني واحد كوبان oo la aamini karo laakiin marka ay noqoto waa mid kooban oo laga hadlo macnaha dadku inta badan ay ka hadlaan iyadoo kooban aad qofku siin karto laakiin marka lagu yiraahdo qisadaada oo kaleeto iiga sheekee dhibaatooyinka ku soo maray jidka aad soo martay iiga sheekee haddaan ku iraahdo ka waran oo tusaalan soo qaadanaya ana samaystay kan xataa mid dad quseeya ma aha haddaan ku iraahdo muxuu ahaa ciidan baa isoo weerarayo markay isoo weerareen anaguna waan ka soo baxsaday luuq hebel baan ku dhuuntay halkan aan imid intaas aan sheegay macnaha qofku ugu aaminaysa ma jirta waa may yani waa inaad ka soo bilowdaa sheekada bilow inay leedahay dhammaadna ay leedahay waa inaad ka soo bilowdaa tiradaa war halkaas baan deganaa meel heblaan joogay gurigaasi anigu aan joogay waxa ku noolaa hebel iyo hooyo iyo aabe iyo waxaas baa ku noolaa dhibaatooyinkan baa hadda ka hor ila soo gudboonaaday tusaalaha waan xaliyay ama ma aysan xalin dhibaatooyinkii way socdeen sidaas yani waxaad sheegaysaa talaabo kasta maalinta ay soo dhacday maalinta wax kugu dhaceen oo aad rabtid inaad sheegtid wixii kugu dhaceen ma garanaydo qof walba wixii ku dhacay qof walba sheekadiisa ama qisadiisa waa u gooni laakiin waxaan ka hadlayaa midda guud oo generalka oo maaragtay baan ka hadlayaa soo marka qofkaas inuu sheegi karo xilliga ay wax dhaceen saacad ka saacad subaxiiba ka soo qaad 8 aroornimo waxaas baa igu dhacay 9kii waxaas baa igu dhacay 10kii waxaas baa igu dhacay 11kii waxaas baa igu dhacay duhurkii 12kii waxaas baa igu dhacay galabtii casirkii 3 galabnimo casirkii markii la tukan lahaa waxaas baa igu dhacay yani inaad sheegtid ilaa habeenkii oo kaleeto inaad sheegtid so markaasi yani qofku wuxuu dhahay oo waxyaalaan isdaba joog ah baa kugu dhacay okay sidee yani su'aalaha ka imaanayo no problem ilaa wixii waa igu dhacay baad leedahay waa inaad xariifkeeda noqotaa oo wixii aad sheegtaa oo sharaxda adaa laga sugaya so marka waa wax adiga mas'uuliyadeeda adiga aad leedahay mid kale taan ku daraya macnaha dadku waxay u maleeyaan in migrationka marka aad timaadid iyaga laga sugayo inay kugu cadeeyaan inaad been sheegtid iyo in kale no ma aha yani sharciga wadanka si waadix ah bay ugu qoran tahay yani cadeynta waxa laga rabaa waxa weeye qofka nabadgelyo doonka ah qofkaas weeye qofka laga rabo so marka adiga nabadgelyo soo doontay wadankan adiga wadankan u yimid oo muxuu ahaa yiri dhibaata ay ku soo dhacday adigiiba marka waxa laga rabaa in aad sheegatid waxa kugu dhacay meesha ay wax kaaga dhaceen qofka kugu sameeyay xilliga ay ahayd sidaad uga badbaaday dariiqa aad soo martay yaa ku caawiyay yaa gacan kugu siiyay sidee wax u dhici karaan mas'uuliyad maxaad ku tala gashay maxaa qorshahaaga ahaa maxaad samaysay si aad uga badbaado xitaa waxaas oo dhan adiga laga sugaya adiga laga raba ajalkan waxa iga keenay inaan duubo waxa weeye dhalinyaro fara badan oo rag iyo dumar ah dumar baa u badnaadeen baa waxaa loo diiday sharciga markii loo diidayna qaarkood 7-8 sano ayay wadankan joogaan dhibaatooyin fara badan baa soo maray raggu waxba ma aha haday banaanada iska seexdaan laakiin gabar sharciga loo diiday oo 8 sano wadankan joogtay waad garanaysaa migrationku lacagtii ka goynayaan waxay ka goynayaan muxuu ahaa hooygii meeshii ay joogtay waxa la ordo musaafirin baan kugu xukunay orod muxuu ahaa wadankaaga ku noqoy meesha aad doonaysay soo gabdhihii marka waxay noqonayaan dumarkii waxay noqonayaan ama darbi jiif ama waxay ku qasban tahay gabar kaleeto saaxiibteeda waagii ay isla soo tahriibeen oo iyaduna sharciga heshay inay dulsaar ku noqoto waxa laga yaabaa gabdhuhu dumarku waad garan kartaa way isku dhici karaan wasaan bay noqon kartaa aakhirka waxa laga yaabaa guur aysan ka filanin ama xataa qof aysan rabin xataa inay madaxa isla gasho iyadoo ka cararaysa noloshan bahdilka ay ku jirto iyadoo ka cararaysa muxuu ahaa waxaan marka jeclaystay in marka aad hadlaysaan oo kaleeto
يعني هذا الله توصن أو صومالي أو وناكسن إن لاتمادان marka aad meesha imanaysan waad barateen snapchat ka waad barateen oo youtube ka iyo facebook yada iyo instagram ka waxaas waad barateen oo sida la isu sawiray waxa maxaad u baran weyseen macnaha waxyaalaha simbalka ah oo leedin ku haysto ama leedin ka rabo maxaa keenay inaad dantaada dayacdid maxaa keenay inaad nafsadaada yani heerka ay joogto aad u keentay hadhiina dadka qaarkood waan garanaya waxay dhigi karaan qadar ilaahay keenay way of course waa laga yaabaa macna wayna dhacdaa macna qadar ilaahay keenay way laakiin ilaahay kuma qadarinta sida aad u hadlaysid inaad u hadashid yani taxadir baa laga rabaa wixii ilaahay keeno aduu ilaahay ma marsiyaha ka dhiganin ilaahay waxa ilaahay uu sameeynayo adiga kala tashan maayo so marka anigu ma jecli dadka dhaho ilaahay baa ii keenay sida ilaahay uu ku keeno of course laakiin adiguna qiro dambiga aad ku leedahay hadii kale to waliga isa sixmaysid maalin walba sidaas baad u hoogayo baay u leedahay maalin walba waxaad ku jiraysaa ilaahay baa ii keenay been baan ilaahay ka sheegaysaa ilaahay kuma keenin bangarta yani ilaahay kuma keenin so marka qofku waa inuu isagu isku noqdaa yiraahdo war maxaa iga qaldamay wixii ka qaldamay intuu isku dayo inuu saxo howlaha ilaahay u yaala iyo ilaahay meesha ugu tala galay meesha ay marayso howshaas waa de howl ilaahay leeyahay waaye ha ku mashquulin howlaha ilaahay taada ku mashquul maantadan hadda aan kula hadlayo film baan duubaya filimkan aan duubayo inuu idin soo gaarayo in kala ma garanayo aniga laakiin ma dhihi karo allah waxa filan duubinay macnaha iska dhaaf sidoo ilaahay noqon bay sidoo ilaahay qoron bay noqonaysaa waxba filan duubin maxay idin la tahay aqli miya kaas no waa waxa adduunka inooga hormareen waxaas weey qofkii macnaha hankii buu ka jabaya inuu talaabo qaado ka jabaya ma garanaysaa inuu talaabo qaado buu ka jabaya inuu wax barto buu ka jabaya wuxuu ku leeyahay wax kasta ilaahay baa qoray saan baa dhacday ilaahay baa qoray sidan baa ilaahay baa qoray of course ilaahay baa qoray laakiin adiga dadaalkaaga kaagi aaw maxaad ku lahayd adiga ilaa waxaan aday kugu dhacayaan cid kale ku dhici maayaan cidkay ku dhacayaan waa goonidood laakiin adiga tan kugu dhacaysa qayb baad ku leedahay qaybtaadii meeday marka muggii aad ku lahayd meeday so marka haddaan ku soo noqdo arrinkayga caddayntaada laga rabaa sida wax isku caddayn kartid dad baa wax isku caddeeyaan caddayntooda la yimaado qof ay yaqaanaan qof iyagu sidaa ka ahaa qof xataa isku qabiil ahaayeen ama qabiilka uu macnaha isku qabiil yihiin inuu caddayn karo uu dhihi karo war hebel hebel dad baa waxay caddeeyaan walaalahooda iyo eheladooda ka soo horeeyo wadanka joogo macnaha ma garanaysa yani qof baa caddayn kara ma fahamtay haddaadan yani tusaalahaan hadda documentiga Soomaaliga oo kaleeto lama aqoonsana wiil baa jiray oo muxuu ahaa la yimid muxuu ahaa passport Soomaali ah isaguna halkan buu ku sugan yahay يعني جاء automatically بالعقلياس فيري ونجي ماشي بوجي باسبور كي واكنا يعني بالعقلياس فيري سويدش كمرك إيه باسبور قاعدنا يان بوليس كي أتجان إيجا نفس الدود أتجا ولبا ورقنا لو حرا معناها إسكات كينك كينا ما واحدة ضدقة اللي هذا إسكات محلها ضدك إسكات باركتك معناها واحدة ضدقة وحالي هذا فولك بوك فوريك بالتجا so warqad baa laga soo qaadaa waad imanaysaa faray ka qaadayaan way ku sawirayaan maxaa marka adoo halkan joogo oo waliba sharcigan lagu diido maxaa musaafir oo cadeyntii lagu haystay dad passport la timaado waa la iska garanayaa passportkaas inuu forgery yahay ama wax weyn aysan yani faa'iido ku keenaynin adba waa la ogyahay so marka talaabada aad qaadayso ha u qaadin maanta xalli waa ina u qaadaa war talaabadan ay saameynta ay kugu yeelan karto ama adiga kugu yeelan karto ama dadka kale ku yeelan karto because annaga maalin walba waxaan u hadlaa in baasaboorka Soomaaliga ah la aqoonsado haddaad marka idinkii laftiinii aad la timaadaan waxyaalo been abuura oo meel aad ka soo qaadeen oo isleedahay dantaada uun xalli dadka kale waxba kaaga ma jiraan dantaada uun xalli waa wareer waa iyada lafteeda
cidna ma caawin karto malaayiin qof oo Soomaali ah baad galaafanaysaa kaliya inaad adigu taada unaad ka fiirsato runtii taadana ku hagaagi mayso because qof halkan joogo telefoon intuu dira passport baa u baahnaay hawada ii soo maray waa la iska garanayaa qof dadka meesha wareysiga kula yeelanay meesha fadhiyo dad jaamiciyiin ah weey dad aqoon dheer leh weey dad wax badan soo arkay weey khibradna leh kuwa kale taa been u soo sheegay waa dad carbiyeysan oo la soo tababaray weey marka dad la qiyaami kara ma yani system iyo dawlad dhan wada dhisan waaye so marka ka fiirso waxa aad leedahay waa inay waxaagu yihiin wax isla socda waa inay yihiin macnaha wax bilow ilaa dhamaad leh waa inay yihiin wax meel loo raac leh so sidaas darteed baan waxaan rabay inaan idiin sheego intaasaytii insha allah inta aanu mar kaleeto ku kulmi doono waxaan idin mar kale idinku celinaya waxaan leeyahay waa Yaasiin Cabdullaahi ninka idin la hadlaya waxaan nin magaalada Göteborg ee dalka Sweden degan waxaan aabe isla markaas siyaasi marna macallin intaan barnaamij sidan oo kaleeta ah aynu ku kulmayno waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo iyo noole kulante